السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هore waxaan u soo baranay board of directorska waajibaadkooda qaybaha u kala baxaan. Inii hore aan soo sheegay waxaan ku jirin khasnajiga. Marka khasnajiga halkan ku jira insha Allah hal akhriyo isagana aad hal akhriyo. Marka waxa jirta waxa loo yaqaano guddi board ku xeelinaya guddiyo. Guddiyada board ku yeelanaya waa guddiyo marka farsamo guddida dhaqaalaha guddida dhaqaal raadinta guddida maamulnaaga iyo xil halba marka haddaan si guud u sheego guddi kasta waxa yeelanaysa guddoomiye guddoomiye kasta marka guddidaas ka madax si guud adaba halkan waxa loo yaqaan committee chair baa jira oo bejisana ku yaala saar kartaan marka waxa la yiri the committee chair sets the tone for the work of the committee. She or he ensures that members have the information needed to do the job and oversees the logistics of the committee's operation. Okay, the committee chair is also responsible for linking the work of the committee back to the full board with reports to the board chair. Committee chairs are often but not always members of the board. waxa la yiri guddoonka guddidu ama guddi kasta ba calashan wuxuu dejiyaa hawlaha guddidu dejiyaa isaga ama iyaguba ama iyadu wuxuu siinayaa warbixintii loo baahnaa xubnaha boardka si uu kormeero marka guddidu wixii ay u baahnayd ku shaqayn lahayd inay haystaan guddoonka guddidu wuxuu hogaamiyaa kana mas'uul yahay isku xidhka shaqada waxa la yiraahdaa guddida iyo tii boardka isagoo markaa wixii riboodyaana la wadaagaya guddoomiyaha guddidu inta badan oo qaalib ma aha inay jiraan laakiin always waa qayb ka mid ah boardka committee chair job description guddoomiyaasha guddiyada waxa loo sameeyaa waxa loo yaqaan job description ama waxa jira waxyaabo laga rabo inay sameeyaan waxyaabaha waxa kamid ah attend all committee meetings guddi kasta kulankeeda waa inuu ka soo qayb galaa call and preside of a meetings of the committee waa inuu guddida kulamo ugu baaqi karaa oo isweeri karaa set the agenda of the committee for the committee meetings guddidu intaan kulmin ka hor waa inuu ajendaashii ay ka wada hadlaayeen uu sii dejiyaa record decisions and recommendations made by the committee guddi kasta go'aamada gaadhaan iyo waxyaabaha ay ka soo baxay shirarkooda waa in qofka guddoomiye ay record garaya waxa kaloo kamid ah report the committee's activities and recommendations to the executive committee of the full board guddiga joogtada ah boardka ayaa markaa uu report noo gudbinayaa maxaa la yiraahdaa qofka guddoomiyaha guddida waahay qofkii ururka uu shaqeynaya ama ka madaxda ahaayay guudna maxaa la yiraahdaa uu kala shaqeynaya xagga dhanka guddida waxa kale oo sameynaya qofka guddoonka ahi delegate responsibilities to the other committees members and encourage their full participation guddiyada kale laftigoodana waa inuu hawshan wado haddii ay dhinaca ka soo galaana waa inuu dila wadaagaa oo la sheegareeyaa qaybgalkooda siduu wanaagsanaado evaluate the work of the committee with other committees officers the board chair and the CEO of the in concert with the organization strategy plan waxa kaloo uu la qiimeynayaa oo la eegayaa dhammaanba ofisarada guddiyada iyo guddoonka boardka iyo qofka meesha haystaba hanaankii loo yaqaanay strategy plan in laga wada hadlo laga wada shaqeysto wax badan la iska weydiiyo haddaba si guud waxaan sheegayaa oo aan rabaa inaan idin la wadaago xogtana waa akhrisan kartaan waxa sax loo yaqaano executive committee executive committee waa guddida ugu saameynta badan leh boardka marka guddida laga hadlayo waa guddida ugu saameynta badan oo guddida fulinta leedahay waa halka markaa inta badan ofisa arrimaha iyo nidaamyada shaqo iyo kala jihaynta iyo waa guddi wax walba ku soo horeeyaan waana guddi awood badan oo guddiyadaas badan inta badan enjoyado aad baga codaan
حاجة سمعنا ما كان هالليو مركا كل شرحات هذا وش شرحات هلا آخريو مركا job description كم حنا قانية جود يعني جود فلنت بحاجة بتعرفوا إيه بوركة السنة participate in selection supervision and evaluation of the president of the organization أما corporation iyaga laftigooda guddoomiyahooda qiimeeyaan guddoomiyaha ururka way qiimeeyaan way kormeeraan xaaladiisay aada u eegaan approves and or assist long range planning haddii ururku yeelanayo ama hay'addu yeelanayso ama kabarigu yeelanayo qorshaha fog dejintiisa way la ansixiyaan way la eegaan reviews financial tests and progress toward financial goals by annually si sanadla ah bay waxay u eegaan u review garayaan xaalada xaaladda dhaqaale ururka because ururku xisaab u dejinaya miisaaniyad u samaysanaya meelihii ay lacag ku soo gelisay loo gaaraya establishes procedures for maximum utilization of board members potential including yearly evaluation of board members according to the job description evaluation of board functions waxyaabaha kale qaabaysan waxaa ka mid ah ka dhabaynta iyo dejinta waxaa loo yaqaano maxaa la yihahdaa shaqada boardka markaa si sanad la-aana way inta badan way u qiimeeyaanoo waxay qiimeeyaan maxaa loo yaqaano maxaa la yihahdaa boardka qiimeyntiisa boardka laftiisa qiimeeyaan xaaladiisa iyo shaqadii loo xil saaray qayb walba inay ka soo baxdeen kale waxaa kaloo ka mid ah awoodda guddiga fulinta reviews each board member's activity qof kasta oo boardka ama guddida ka midka shaqadiisa qiimeeyaan recommends new board members haddii cid cusub ururka soo biirayso oo boardka rabta in gashana waxay leeyihiin qofkaas qof wanaagsan ama ciddaas waa ururka ku soo biiro boardka sanadkan dadkaas ha loo cumaamado way ka tala bixin karaan waxaa jira guddi kaloo la yidhaahdo board development or nominating committee job description guddida horumarinta boardka ama guddida marka taa laga yimaado waajibaadkooda waxaa ka mid ah iyagana determining what is needed to strengthen the board putting together the list of prospective nominee develop tentative slate nominee recruiting candidates who are willing to serve developing final slate of nominees inta badan dee ciddii maaragtay meeshii ururku ugu baahan yahay ama boardku ugu baahan yahay in kor loo qaado ama la xoojiyo ayay markaa ay go'aansadaan ciddii lasoo magacaabana way eegaan xaaladooda si ku meelgaanana howlaha cidda lasoo magacaabo way u jeegarayaan waxay soo kala xulaan sidoo kale guddida rabta inay boardku biirto ayay kala saaran kala xulaan inaas waa intaa fundraising or research development committee guddida dhaqaale raadinta iyo horumarka fundraising committee waa dadka dee badanaa dhaqaalaha ururka u raadiya oo inta badan waxyaabaha dee meelaha lacagta kusoo geli karta ururka meelaha maxaa la yihahdaa dee dakhliga loo ogyahay meelaha hayadaha mashaariicda haya waa dadka soo baara soo ogaada ay yidhahdaa hayadaas lacag ba haysaa ama kambanigaas lacag bu hayaa ama dowladdu lacag dadka masaakiinta loogu talagalay ba haysaa adigu waa dadka waxay raadiyaan istaraatiijiyada samibada dhaqaale lagu raadiyo waa muhiim waxaa kaloo jirta guddiga dhaqaalaha oo iyaduna finance committee la yihahdo oo iyadu waxay qaabilsan tahay hanaanka dhaqaale isticmaal hanaanka dhaqaalaha loo isticmaalayo iyo wixii la halmaala badanaa guddidan maxaa la yihahdaa dhaqaalo waxay ku shaqeeyaan financial policy badanaa aada ugu shaqeeyaan oo inta badan ay xoogga saaraan job description-kooduna waa inoo qoran yahay kala arki kartaan ciddii dhaqaalaha ku fiican hayagto waxaa kaloo jirta qolo loo yaqaano audit committees guddida baarista oo haddii ururka soo gasho dhibaato maasuq dhibaato maamul xumo dhibaato tacadiya dhibaato markaa administrative iyo financial problem haddii ka dhaca meesha
وحسويدارين maamul xumid برابري laaluush lacag si xun loo isticmaalay guddidan baa qaabilsan markaa inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaado ciidda markaa job description waa noo qoran yahay wada si guud haddaan dee u kormeero boardku waxaan nidhi guddiyo badan u koobnaan karaa hadba waxay ku xidhantahay baahida ururka u taala gudihiisa hadba waxay ku xidhnaanaysaa baahiyaadka maamul ee ka jira badanaa waxaa jirta guddi loo yaqaano ururada Soomaalidu badanaa waxay sameystaan guddi loo yaqaano good governance committee guddida maamul wanaagga guddida maamul wanaagga badanaa waxay ka shaqeysaa dastuurka xeerarka habraacooda iyo wixii la halmaala waxaa kaloo jirta iyaduna guddiyo kale inta badan loogu talagalo iyagana marka ad hoc committee baa leedahay waa guddiyada markaa iyagu hawl yaro soo baxda loo xil saaro oo leehdo guddaas waxaa soo kale ka qabato wax ama guddaas waxyaabaha dhexdhexaadiso ama guddaas waxaa ka qabato waa guddi taramkeeda gaamiyaha laba isbuuc baa loo saaray guddidaas hebel baa loo guddoomiye ama hebel ayaa guddoomiyaha saana badan waa la sameeyaa guddidaas saas ku shaqeeyaan badanaa therefore aad bay muhiim u tahay markaa guddi kasta in dee loo sameeyo markaa saa loo sameeyaba job description wixii loo yaqaanay ama nidaamka u shaqeyn lahaayeen kulli berrina waxaan ama tomorrow might be some waxaan u baahanaan doonaa insha Allah soo diro wixii loo yaqaanay leadershipka oo ah hogaaminta tolmoon markaa ku habboon ururka iyo arrimihiisa samafal iyo sidoo community uu shaqeeyo guddiyada markaa waxay fahmi kartaa guddiyada waxaan waa guddiyo official imka intaan sheegnay waa guddiyo jiro hay'ad walba ka jiraan laakiin qaar baa runtii aan bartan u moodo dhama sida guddiyaan ku leeyahay guriga fadhiiso kala badan ah waa kuwa ay Soomaalidu aad ka u sameystaan xooggan ay saaraan qofka khasnajiga ah ee ku jira meesha oo aan ku jirin barnaamijyada horena shaqadiisa la akhriyo xogaynta waan soo baranay qofkaas inay tahay qof information ka disseminate garaysa isku hagaajisa marka board ku shirayaan iyo wixii la halmaalaba intaas bay yadaamo inta badan qaabilsan qofkaas qaabilsan treasurer-kuna wixii la xidhiidha maaliyadda iyo hanaan socodkeeda therefore enjoyda waa deegaan sida dowladda u dhisan waxaa soo doorta boardka GA baa soo doorta waxaana boardkaas markaa soo doorta teera muddo xilka hayaan lagu heshiyo 2 sano 3 sano 4 sano kolba sida lagu heshiyo badan ay ku xidhnaanaysaa dastuurka markaa badanaa marka dastuurka la doonayo boardka Mr. Chair waxaa la isweydiin karaa boardka Mr. Chair la dooran karaa boardka waxaa la dooran karaa 2 jeer 2 teera ma dira doorto teera saddexaad uu bareeray qofkaas la qaasho marka board electionka iyo wixii la halmaalana that's why inaan magaranaysaa baaritaan kan intaan aan soo sameeyay in ka badan qofku waa inuu sameeyo waa inuu ku dadaalaa si markaa expert uu noqon karo markaa intijaaha maamul ee ka dhex jira markaa ururada bulshada iyo qaabka u dhisan yihiin shaqaalaha iyagu inta badan waa inagii sheegnay oo iyaga waxaa lala soo galaa heshiisyo contractkaas ku tagaa laakiin qofka boardka wuxuu ku tagaa maxaa la yiraahdaa doorasho halna way helay doorasho laftigeedu xad bay leedahay oo inta qofku xad buu leeyahay xadkaas markaa loo asteynaya oo loo eegaya inta badan ururada Soomaalida ahay badan 2 sano 3 sano 4 sano intaas doorta taas badan yihiin marka insha Allah hala soo akhriyo hala soo daal su'aaluna ha badnaadaan kulli dad waxaan soo weydiisay dad comment noo soo qortaba it's better in wax si kala faaysan insha Allah dilaha ka dhigo thank you very much all